kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda degmada Xeraale. Xeraale waa degmo waxaana degmo loo aqoonsaday taariikhda markay ahayd 22kii bishii labaad 2006. ku dhawaad dadka ku nool Xeraale waxaa lagu qiyaasi karaa 15,000. Xeraale waxay ku dhawaad 90 kiiloomitir u jirtaa magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxayna bartamaha kaga taalaa magaalooyinka Cadaado iyo Gurceel, waana sababta ay u noqotay goob istiraatiiji ah muhiimad gaarna u leh isku socodka bariga iyo galbeedka Galmudug. deegaan ahaan magaaladu waa mid ballaaran oo hareeraha ka fidaysa, waxayna ka kooban tahay 10 xaafadood. shacabka ku dhaqan magaalada waxay xilligan ku howlan yihiin horumarinta magaalada marka loo eego dhinacyada dhismaha ee muuqaalka magaalada kor u qaadaya iyo ganacsiyada soo badanaya oo iyaguna fursadda shaqaalaysiinta iyo shaqo abuurka kor u qaadaya. shacabka magaalada ku dhaqan waa bulsho aad u furfuran, waa dad ku fiican la deriska iyo martisoorka. soo saare Xuseen Cali Xuseen, warbixintii kooban intaa iyo nabadgelyo.